kusoo dhawaada channelkeena ayaa Yurad News waxaan doonaynaa xog xasaasi ah oo ku saabsan arrinta khilaafka Galmudug madaxweyne Xaaf oo laba ujeedo ka damacsan heshiiska uu la galay dowladda federaalka Soomaaliya Muqdisho ayaa Yurad News madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa dhawaan heshiis isfahan la galay dowladda Soomaaliya waxa uu hadda magaalada Muqdisho u joogaa dhameystirka heshiiskaas madaxweyne Xaaf ayaa heshiiskan kale dano badan oo siyaasadeed si la mid ah doorashada dowladda Soomaaliya ee heshiiska maamulka Galmudug iyo ahlusuna dhawaan kula gashay magaalooyinka Cadaadad iyo Soomareeb dadka ku dhow madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa Yurad News u xaqiijiyay in Xaaf laba ujeedo ka leeyahay heshiiska dowladda federaalka Soomaaliya qorshaha Xaaf ayaa lagu sheegay inay kala yihiin koow in dib loo dhigo muddo bilo kooban doorashada Galmudug lagana gadaal mariyo midda Jubbaland si uu qiimeeyo doorashada Jubbaland Xaaf ayaa damacsan inuu la xirto Axmed Madoobe haddii uu dib ugu soo laabto kursigiisa hoggaanka Jubbaland kadibna uu ka hor yimaado dhammaan rabitaanka dowladda Soomaaliya inuu qaato lacag malaayiin dollar ah oo ay dowladda Soomaaliya ka hayso Galmudug Xaaf ayaa doonayay inuu soo qaato lacagta Galmudug ee lagu hayo akoonada dowladda Soomaaliya kadibna uu ka hor yimaado dhammaan rabitaanka xukuumadda Soomaaliya oo weli dagaal culus ku haysa maamulkiisa Axmed Ducaale Geelle Xaaf waa siyaasi marina badan siyaasadeed dageysada ayaa dhawaan heshiis baahi keentay balse aan rabitaankooda Soomaaliya kadib markii uu ka soo baxay maamulka ahlusuna ee degan Soomareeb